maadaama maanta ay halkaan fadhiyaan bahdii saxaafadda oo midaysan waxaana la yiri ummadii midowda waxay doonto ma weydo maanta way midaysan yihiin bahda saxaafadda Soomaaliyeed waxayna u taagan yihiin inay aayahooda ka tashadaan waxaan rajaynayaa inaan ka baxno arrin ay ku soo jirtay bahda saxaafaddu muddo dheer arrintaas oo ahayd dablay aan la garan baasaaka wariye dilay oo duugtiisa joognaa dadaalka iyo hawshana kama daali doonay dadweyne ogsoono dawladuna ma daayaan wariyaha kuwii dilay waa ku daba jirnay oo degdegaan u soo qaban ehelkiyo dadkiisana tacsiyaan u dirayna shacabkuna ma daayaan waa yaaba yaa dilay wariyaasha yaa dila ma la hela kuwii dilay hay'adaha duniduna u dul qaadan mayniga cambaarayn ma daayaan midku dila mid daawada midku duuga maahana daryeel kala ma hayne allo daacadadeeg taas ayaan ku soo jirnay muddo dheer waxaan rajaynaynaa maanta waxay ka dambeeya bahda saxaafaddu inay ka bixi doonto oo sidii hore si dhaas ay noqon doonto kullayba amni darrada iyo dilka ummadda Soomaaliyeed ayay la qabtay hase yeeshee mid u gaara ayaa saayid u ahayd oo si dheeraad taasna inaan ka gudubno ayaan rajaynaynaa waxaan kaloo rajaynaynaa hoggaan wanaagsan oo dariiq wanaagsan lagu hogaamiyo inaan dooranana waa rajaynaynaa intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa warkayga